shacabka ku dhaqan degmada Xingalool ee gobolka Sanaag ayaa maanta dareenkooda ku muujiyay sida ay uga soo horjeedaan ciidamada Soomaaliland ee ku sugan qaybo kamid ah degmooyinka gobolka Sanaag ee Puntland. Qaybaha kala duwan ee shacabka ku dhaqan degmada Xingalool oo sitay calanka qaranka iyo kan dawlad goboleedka Puntland ayaa isku soo baxay wadooyinka waaweyn ee degmada iyagoo markaasi ku dhawaaqay erayo ka dhana ciidamada maamulka Soomaaliland ee ku sugan degmooyinka ka tirsan gobolka Sanaag. Sidoo kale shacabka qaybihiisa kala duwan ayaa taageero u muujiyay saraakiishii ciidamada Soomaaliland ka joogay gobolka kuwaas oo xalatu xiriirka u jaray la shaqeynta ciidamada maamulka Soomaaliland. waxaan u mahadcelinayaa ciidamada Warsangeli ee ka tirsanaan jiray Soomaaliland ee ka wareegay ee sida gobonnimada la doortay ee gahooyada xayay Soomaaliland iyo Warsangeli ayuu ciidankaas ahaa waxa sababayay inay caynka gooyaan. waxaa la galay bishii saddexaad magaalada Yubbel la yiraahdo oo tuulo ah waa la galay degmo maaha gobol maaha ciidamada la keenay lagu qabsaday welina waa lagu haystaa. qodobka saddexaad waxaa yiri niman hooyadii iyo aabihii ninu socda nabadeedna ninka hooyadii iyo aabihii u socda meesha joogeen waa loo diiday wuxuu sameeyay inuu tago damalaxagare waa lagu soo weeraray 30 gaadha ku soo weeraray 30 gaadhi dad iyo duuyo iyo aqal midna kama tagin. waxaa lala dhacay technico waxaa lala dhacay baasukayaal waxay ku galabsadeen lama yaqaan waa tuulo degmana maaha gobolna maaha. maalinta calanka la qaatay bay u dhigataa waayo ismo iyo shicib iyo ciidan waa maalinta kaliya oo talada Warsangeli helay oo ku midoobay tala midaysan u helay sidaa darteed maanta waa maalintii kaliya hay waxaan isku sameynaa baxay hadaan nahay bulshada ku dhaqan degmada Xingalool inaan mowqifkayga diibano aan ka soo kacsano waxaan ka qabno waxaan lambarka koobaad ilaaba mahadsan lambarka labaad waxaan aad taageeranaa ciidamada iyo dawladda iyo ragga midoobay oo iska tuuray reeriyadii yarayd ee xumeeyay ee jeegaanta u sideen iska tuuray baan aad u soo waxaanu ka hadlaynaa dareenka iyaga qadiyadayadaan ka hadlaynaa maanta waxa weeyaan waxa noo hagaagay dareemkii iimkayagii baanu gaahnay eeriyadii cadowga naga degtay wadnahaanu farta ku haynay inaanu halaysannahay oo dalka iyo dadkuba dhacan yihiin ayaanu ku lamaad noqonse weyday waxa weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala waa mahad iska leh mudnaanta koowaad waxa leh ciidanka qalabka siday oo aanu islahayn Soomaali diid buu idinka raacay idinku gadaal qoriga dib idinkula soo noqonaya lamaad noqonse weyday way iskarteen iimaankoodii baa kaamil noqday aqligoodii iyo dadnimadoodii bay adeegsadeen ilaahayna waa soo hadeeyay lambar kow ayagaan u hambalyeynayna waxaanu leenahay guulaysta iimaanka Allah idinku sugo waxaan u hambalyeynaa ciidamada Warsangeli oo iska casiray Soomaaliland maanta waa aragtaan waxaas shacab wuxuu soo banaaday u hambalyeeyaan ciidanka janaalada iscasiray anigu waxaan ku hadlayaa afka dhalinyarada waxaan baa u dirayaa dhulbaanto Warsangeli waa aragtaan maanta inuu sameeyay ka jeclaan lahayn inaan la midoobaan. Assalaamu calaykum ورحمة الله
degmooyinka ceelbuh carmale damala xagare iyo yubbe oo dhamaantood ka tirsan gobolka Sanaag ayaa sidoo kale shacabweynaha ku nool waxay maanta sameeyeen banaabaxyo waaweyn kuwaas oo ay kaga soo horjeedaan duulaanka ay ciidamada maamulka Soomaaliland ku soo qaadeen qaar ka mid ah degmooyin ka tirsan gobolka Sanaag ee Puntland shacabka ayaana sidoo kale hambalyo u diray saraakiisha ciidamada gobolka Sanaag kuwaas oo gabi ahaanba iskaga baxay ciidamada maamulka Soomaaliland Salman